السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسو دوادا مقدشة كوكين مركا maanta waxaan rabaa inaan inoo sameeyo basta isku dhex karisa iminka waxaan soo saaray digsiga dabka waxa aan ku daray hadda waa saliid hilibkii ayaan kusoo dhex riday saliidii marka ii karkartay ii kululaatay hilibka marka cabaar yara shiilay waa milix waxaan iminka ku daray himilaayo weeyaan milixdaasaan ku yara shiilay wax yar kabacdi haddana waxaan kusoo daray waa basashan cabaar isku yara shiilayaa daboolkan yara saarayaa ilaa inta ka shiilmanayso basashan way noo soo shiilantay maasha allah basasha marka in yara shiilo ayaa waxaan ku daray tamaandhada waxaan iminka gacanta ku hayaa waxa weeye waa tamaandho loogu talagalay maxaan yiraahdaa bastada marka taasaan insha allah si fiican isugu shiilaya iyadana cabaar baan shiilayaa waxaan hadda haystaana waxa weeye xawaashiyadii aan ku dari lahaa waa basbaas cas huruud liin dhanaan qalalan barbariika xawaash isku jira sactar waxa weeye organo sactar iyo maxaa la yiraahdaa kan waxaan soo kale waxa weeye waa choice-ka xalwada lagu darsado oo budaa weeyaan isaga ayaan ku daray marka intaasna cabaar isku yara shiilaya markaan cabaar isku yara shiilo lafta iska yara dhex gasho haddana waxaan kusoo darayaa waxa weeyaan 10 qasaac ayaan kusoo daray ama shishiid kamsaraan ku daray basal baar baan ku daray intaasan marka aan is dhex gelinaya iyadana si fiican isu dhex gelinaya haddii la yiraahdo maasha allah way noo samaysatay si fiican ay isugu soo keen shiilantay khal baan imkana ku daray marka cabaar baan daboolka saaraya waxaan meesha igu jirana waxa weeyaan waa soft cheese kaas ayaan ku daray haddii la yiraahdo marka cabaar isku soo shiilantay maasha allah qurux way noqotay soft cheese-kii ayaan ku daray waa cheese aad u jilicsan oo sida creamkii oo kale ah ama yogurtkii oo kale ah laakiin waa cheese biyo aan soo karkariyay aan imkana ku daray biyo kulul oo karkarsan ayaan dhuuca u geliyay imkana biyahaas markay si fiican isula soo karkaraan ay aad u xumbeeyaan ayaan baastada ku darayaa marka qof walba qiyaastiisa isaga garanaya intii ku darsanayo anu kilo baasta ayaan karinayaa marka qof walba qiyaastiisa isaga garanaya xawaashiyadaad ku darsanaysid kulay xawaashiyada guriga ku yaalan baad ku darsanaysaa waxa aan hadda ku daray waxa weeye waa kamsar qalalan soo karkareen biyo xoog u karkareen waxa dusha marayna waa cheese-kii marka imika maxaa la baasadii ayaan ku darayaa bastadii way soo karkartay biyintii badnaana way laqday marka xogaa waan yara karinayaa marka iyadoo dheecaan yar leh oo dheecaan yar ku jira ayaan rabaa inaan ka baqtiyo insha allah aan xoog u qalalin marka iminkana waan eegaynaa way soo baxdo maasha allah aad ayay u qurux badan tahay dhadhankeeda ayaana kasii daran aad ayay u macaan tahay insha allah halila soo tijaabiyo haddii la yiraahdo hadda waa diyaar baasti wuxuu haray ma jirto waan soo diyaarinayaa saxamadan insha allah ku soo diyaarinaya haddii la yiraahdo ma sha allah waan soo diyaariyay
labada saxan ayaan kusoo kala diyaariyey. maxaa la yiraahdaa qofkii raba inuu cheese ku darsado, qofkii raba inuu sidiisa u cuno, intaba maasha allah way kusoo baxaysaa. basbaasna way leedahay, qofkii aan basbaas jeclayn wuu ka daysan karaa, laakiin anigu basbaas baan ka buuxiyey, basbaas badan bay leedahay. cheese baan ku daray iminka, tan cheese baan ku daray dhinacana, laakiin tan cheese kuma darayo, qof wax la siinaya cheese ka jeclayn. halkan waxaa ku diyaaran waa saladkii. saladkaasna maxaa la yiraahdaa kuley markasta waxay ku qurux badan tahay cuntadu saladka ayay ku wanaagsan tahay, qurux hadday tahay iyo caafimaad hadday tahay, cunto kastaad cunaysaa waxay wanaagsan tahay inaad saladka aad ku darsatid. maasha allah aad ayay macaan tahay. soo tijaabiya insha allah. maasha allah way dhamaatay, waan dhameeyey cuntadeeni. waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you for watching Moqdisho Cooking. Please don't forget to subscribe, like, share and comment.